noloshii haasawa wixii ugu qosolka badnaa ku soo maray muxuu ahaa kulanti wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada channelkaygii Mawlid Sam caawa waxay la joogaa inaan saaxiib nahay magaca saaxiib magacayga yaxya si fiican caawa channelkaygii ninkan marti ku ah waxaan jeclaystay inaan mar labaad ninkan saaxiibadan ahay Cabdalle Jamaal Cabdalle aan interview ka qaado marka caawa waxaan weydiin doonaa dhowr su'aalood laakiin inta ka hor aan ku soo dhaweeyo channelkayga aan ku faraxsanahay saaxiibina channelkayga soo muuqato waxaan ku leeyahay soo dhawo saaxiib aad baan u dhawahay ummadda muslimiinta meel baa caalamka joogaan waxaan ku salaamayaa salaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mahalkii dhararti casharhiima mawxiga dad hargeysa soo maray hadiyadda igu dhiiba mahalkii dhararti casharhiima mawxiga dad hargeysa soo maray hadiyadda igu dhiiba malaa waa markii ugu horeysay interview noocan oo kale aniga la iwareystay anuunbaa dadka aad u wareysan jeclaan su'aalaha la dhaco maanta waan isa soo giijinaya bal dhexdan soo xidha xataa su'aalo badan waxba hay tusin soo daayin su'aalo badan oo niyadda ku hayseen ayaan caawin kan idin weydiinaya walow aanan dhameynaynin marka hore waan ku soo dhaweynayaa saaxiib waxaan ku weydiinayaa waxa tahay imika YouTuber dadka Soomaalidii ay ku xiran yihiin waxa tahay YouTuber lagu yaqaan badan inuu soo gudbiyo quruxda iyo bilicda wadanka su'aasha koowaad aan ku weydiinaya waxay tahay markii kuugu horeysay ee aad YouTube ka bilaabaysay in aad muuqaalada sidana aad soo gudbiso ee sidan u quruxda badan YouTube ka hor waxaan qaar ku diyaarsan waxay ahaayeen muuqaalo midba ku sii dhibay ahaayeen horta waa su'aal aad iyo aad u fiican anu markii hore waxaan ahaa intaan YouTube ka aanan bilaabin horta waxaan ahaa dhalinyarada social media aad ku isticmaasho gaar ahaan qaybta Instagram-ka aad ugu wanaagsan oo mar walba live soo gali jiray sax mar walba marka live soo galo aan asxaab soo qabanayo mar walba waxay igu dhiirigelin jireen maad YouTube na furtid aan bartaas aan isku xog wareysanay sax inta badan aniga gaar ahaan waxa aad igu dhaweeyeen inaan saaxiib nahay oo taangal leedahay oo aniga macallinkayga waxaan ahaa shaqaale ka tirsan shirkadda Astaan TV oo garanaysan marinaya anoo kamid ahaa shaqaalaha Astaan TV ayaan hadana waxaan ku yiri oo ninkaas igu dhiirigeliyay inaan barnaamijyo follow aan sameeyo oo ku soo baxayo inaan muuqaalada noocaas aan sameeyo sababtoo ah mar walba deen moolkiisa waxa isaga duuduub jiray markii dambe ayuu ninkan wad balaarin kartaa horna u sii socon kartaa anna sidii ma isku dayay muuqaal wuu sii dhiibay dadkuna way ka sii helayeen markii dambe team baan noqonay imka wax already team baan nahay ilaa 3 nin baan nahay oo de muuqaalada intaas aan ku iska caawinaa hadii noqoto barnaamijyo fara badan sida baraanka oo kale muuqaalo kale igu safara interviewada oo kale ma sha Allah saas oo kale oo kala baxaan interviewada aad qaadi jirtay aan caawadi ka qaaday caawama yaa qaadan lahayd su'aasha labaad aan doonay saaxiibin ku weydiiyo wax weeyaan YouTube ka hor iyo YouTube ka kadib noloshaadi maxay iska bedelay daniyow adiga laftaada maalmaha ma TikTok wax ka socda sheekada la remember moogtay maalmaha waxaan social media bal u yara gaabi oo yara gambi moogtay remember iyo waxa kuli faar social media yara gambi maalmaha waan siirinayaa waxa salaha bal waxay soo heli doonaan de berigii xaaladdu iska yar adkeeda iyo kale iska ay waxa kuli sawiradaadii udifka habarseeya niyoon u arkay wada qaar la soo helaba deeyada waa qaar laakiin aad ma faafin ay aad si faafin asxaabta daawan san xalay fadlan si faafin marka kullu waqti dareemi kartaa waa laba marxaladood oo aad u weyn baahan sax de markii hore dhalinyarada iska ahaayo de kubadina waa iska ciyaari jiray oo de waxa ku maanta hadda waxa tahay nin weyn oo de mas'uul oo soo gudbinaya moogto oo dhalinyar fara badan ay gaarayso mid kale de imka ciyaal yar oo kale ay u dayan karo oo de qaar soo kacaya jira marka waa inaad wax wanaagsan aad u horseedo moogto exactly marka saas labada farqi waa inta badan u dhaxeeya ayaa u dhaxeeya su'aasha saddexaad in ku weydiinaysa saaxiib waxa weeyaan waa yar naxsanay siragi su'aasha saddexaad aan doonayna ku weydiiyo waxa weeyaan ma islahayd YouTube-ka markii aad bilaabaysay barnaamijyadaadan aad bulshada la wadaagaysaa macna intan leeg bay ku fadhiisan doonaa wallahi niyo horta ismaan lahayn oo de waxaan islahaa de markii hore TV khatara joogo barnaamijyada sameynayaan iyo wax ku waxyaabaha soo gudbiyeen aad cajiib u ahaa
dee dadaal fara badan iyo inaan dee wax dhigto iyo inaan wax eego iyo sida muuqaalada loo sameynayo muuqaalka ka hor inaad wax sii qorto iyo inaad wax sii dee magaranaysaa sii diyaariso kadib wuu waxaas ku iman kareen laakiin se wallahi tismaan lahayn صح kulli markii dambe dee actionka dadkii iyo dee arrimahaas ka sii falqaado سؤال كفتنا ساحب كويدينيا diyaar weeye soo wadniyo caaw وسؤال شافراد ويا نولشي هاساوا wixii ugu qosolka badnaa ku soo maray muxuu ahaa saaxiibkii wala sirtii uu fariin mooday saaxiibka ma soo silmay may barnaamijka intaan bilaabay waxaad igu tiri caaw anigu dadka wax walba weydiiyay waad igu tiri wax alle waxa duusan kaga jawaabay anigu waxaan jeclaa waxyaabaha dadku weydiiyay aniga la weydiiyay mayad inaad oo aan wadi gaarta moogta xabada ambil ma ka qaadan karaa talo may ada wadi golo bolanta saaxiib way saasha igu yiri dambiisi ku kala ka soo horeysay ma ka sanayna si jawaabay way la socdo su'aasha ugu dambaysan qolada su'aasha kale saaxiib doonayo waa su'aasha shanaad weeyaan su'aasha shanaad ku weydiinayo wax weeyaan YouTube-ka dhalinyarada imka YouTube-ka inay bilaabaan iyagu badanaa jecel qofba wuxuu ka aaminsan yahay qof wuxuu isleeyahay wax ma sameyn kartid qof wuxuu isleeyahay sidii loo hadlay ma garanaysid qof wuxuu isleeyahay dadkii kula sameyn lahaa ma haysatid marka su'aashan doonaysa saaxiibana ku weydiiyo wax weeyaan YouTube-ka in la bilaabaa ma aqoon buu u baahan yahay si waxaagu u noqdaan wax dadka soo jiidanaya mise uma baahna oo orin wuxuu u baahan yahay nin soo hor fadhiisto oo hadal kala garanayo horta tawo su'aal aad iyo aad u ballaaran horta YouTube-kiisa waa laba wado ma haddaad xagga wanaagsan aad u adeegsato waay iyo inaad dadku wax u soo gudbiso waxna laga faa'iido taariikhna ka tagto exactly taas waa mid waay ma haddaad xagga kale aad u baydho waay oo waxaan ku maalin qof aad ku dheganaato maalin inaan waxaan ku laga oohiyo maalin qabiil la caayo maalin reer la caayo maalin magaalo iyo wadda dhan la soo caayo waa labadooda duulay labadaas baad ku banaanta marka tii agida kula qurux badnaata ma inaad si sharaf leh bulshada aad ku dhex marto aad meesha doonta aad tagto waxa jirta dhalinyar magaalada jooga oo xaafadaha qaarantii karin exactly waa run wallah gadooba ay ka baqanayaan iyo hadallo iska yiraahdeen marka labada wado way ku banaan yihiin qofkii isaga jecel tuu doonayo marka aan inta badan waxaan kula talin lahaa dhalinyarta rabtay inay YouTube soo bilaabaan marka koobaad dalama soo dhanina waa badweyn wallahi bilaw wad ku rafan qofka soo gali aan waxaan kula talin lahaa horta marka koobaad uu isugu soo yaqaan sida wax loo duubayo sida loo edit gareynayo barnaamijku uu duubayo nooc uu noqon lahaa waa sawirkiisa uu sii haysta exactly sababtoo ah qofkan ka duubaya waa qof bini'aadan oo lamida waxaan usan karaa saf buu gali karaa aroos buu gali karaa bilba waxa ku wallah marka wax qurux badan qofku wax walba uu yaqaano hadii edit noqoto marka hadda inta badan dhalinyartu waxay aad uga codaan xagga qalabka iyo waxyaabahaas marka koobaad waa inaad horta qalabkaaga aad haysataa wixii aad ku shubi lahayd wixii aad ku duubi lahayd iyo intoo dhan marka inta aad haysatid waa caadi wad iman kartaa waa inaad ku sawirnaataa waxa aad doonayso iyo barta u socota laftirkeeda haddaanay meesha u socotaan ogeynba aadiyad waxaan ku leeyahay 900 mawjudood walqaas imika inaad qofka caan noqda aad buu fududahay aad iyo aad buu fududahay laakiin se waxa ka horeeya caan iska noqday micnuhu weyn ma sameynayso laakiin waa inaad samaysato wax fiican oo lagugu tixgeliyo lagugu ixtiraamayo aad iyo dad tiraamad hebel baan ku dhigaya inta wax kuriyay waa oo ku soo caanbaxaya way ka doo imanaysaa naakh inta badan intuu video ku socdo haddaad wax kuriyay aan maskaxdaas aan soo jeedin oo hadalka dhiranaysa aan maskaxda aan soo marin hadhow talo wax ka doo ku badin ma saaxiibkay soo badin ma wallahi aniga boom inta ma kugu kaajiya saaxiib ya way saashin doon saaxiibina ku weydiyo waxay tahay wili hore cidi kuma weydiin barnaamijkan ka horeeyay waxaan ka qaaday saaxiibkan qays waan weydiiyay su'aasha saaxiib isagu iga meerasta ya wiigan bi marka saashin ku weydiin waxa weeyaan YouTube-ka lacag intee leeg baad ka sameystaa saaxiib والله كذا أرتني هو أرتها روح لوي يونين مشاركي هويتين قبل نبدأ هويتين أبو حوجا أبو عليه كل حال أرمي ويسكب بدين أبو ويسكب قياسات واحد صدق إنك قصدي واحد في عوية مثلا يا أبو واحد كم حيا أبو ما ماضي هاي إني مشاركي اللي هويتيو أي قبل نبدأ هويتين مركا كله فنيا waxaan filayaa saaxiibayaal su'aalihii intaas ku soo gabagabay laakiin su'aal baan ilaaway tibadliyo su'aashaad igu tiri halka ugu dambaysa saaxiib u dhigo nin su'aashaas waxa ka jawaabaya markay imika subscribe ay la dhacaan markay saaraan uma su'aasha ka jawaab imika channelkayga 10,000 wax yar baa uga harsan ma ballan qaadaysaa haddii ay dadkaasi 10k ay gaarsiiyaan waan tusiyaa waliba in su'aasha mar dambe inta timaadada ka jawaabayso
16k haddii gaadhsiiyaan iyadoo faahfaahsan oona in yaro beena xataa ku darin aana waxbana ka qarinayn ayaan u sheegayaan weliba xataa in case haddii ay dhacdo oo aynu kala maqnaano ama safar u kala baxno life baan soo gelaya life wayna soo gashay life baan soo gelaya ilma adeerayaalo haddaba diyaar weeye 15 kun oo caaw ninkaas sheegtay waxaan ku su'aashaas si aanu inooga jawaabayna gaarsiinay weeyaan aad asxaabta channelka ku xiran aad baan u salaamayaa kuwa ku soo biiri doona iyaga turkooda aad baan u salaamayaa war waxaan doonaynaa dhalinyartu in isdhiirigeliso in isgarab istaagto dee maanta YouTube ma la isugu imanay meelo ka badan oo ka sii weyn baa hadhow la isugu iman doona exactly wallahi war marka waxaan rajaynaynaa inaad channelkana subscribe noo saartaan muuqaalkana maaha kii ugu horeeyay kii ugu dambeeyayna maaha insha Allah muuqaalo badan oo kasoo muuqan doona waa markii ugu horeysay aan interviews dan oo kala hadda anigana laga qaado niyow dhagiiba bay yar baxay ciidan baa hanu hadda interview qaadi dadka wala sayri doona insha Allah may waxaan interview ka qaaday bal saaxiibina dareento dadka marka su'aalaha sinaad weydiinayso waxay dareemayaan dareenta wallahi anu warta dadka marka interview iyo su'aalo noocaas kala weydiin anu waan u yarade waan ka khafifay laakiin sinina u khafifin baa inta badan wax ku dhigo lajid oo kuna ma عدلوستان كان كسلامنا يا أصحاب هذه كلهم دمان كان كسلامنا وهي هذا الكيجو دنبين دون البرنامج كان كسر حرنا dhalinyarada maanta adiga kula midka waxa jira dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo inaad video-gana daawan doonta maanta haddaan ku raahdo hal ama laba eray ku dhiirigeli maxaad ku dhiirigelinahay saaxiib anu mid baan u sheegayaa hal kaamil hadii iska dayno wallahi rabbi gaaraya sax baasha qabiilada leeyahay hadda iska diiseen kana fogaataan wallahi billahi rabbi gaaraysa exactly nin jeclaysu aad uma fiicnay isagu ka jooga min حقا لا هذا Soomaali meel ay degtaba kale xagee jooga hadii walaaliin way oo wixii lagaga soo baxdo dadna waxa ku sida rag aad uga soo baxdo adiguna markaa gool ugu garbaxaya waa run wallahi qabyaalada hadii la iska daayo wallahi billahi rabbi gaarayna exactly markaas baashaas iskibi naga yiraahdo ayaan leenahay dhamaantood dhalinyarta annaga naga sii generation kale waxaan ku dadaalaynaa inaanay weligood waxbarashadooda aanay ka tagin ay jaamacadoodana dhameystaan jaamacadda markaad dhamaystina wixii aad jeceshay samee dad muuqaal duubayso haddii wax kala soo gudbinayso haddii aad digto noqonayso waa adigii dooqaad waa adigii dooqaad tan iyo mar dambeynteenu hawada mar dambe ku kulmi doono waxaan idin leeyahay saaxiibayaal kal iyo laab baan idin salaameynaa waxaan idin leenahay muuqaalkan sheer gareeya la wadaaga asxaabtiina kuna xidhnaada hee mawlid sam on the beat xagga markaa